هاي برين سيتاي على دقورن كنا يوصل الدهداي دينك وحرم هاي واسعنا يا إبراهيم محمود أحمد waxaan kula kulmay mid ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho xilli galab ah oo ay qoraxdu sii dhacaysay isagoo ku jira howlihiisa shaqo xilligaasi oo aan u baahnaa inaan raaco mooto bajaaj balse nasiib wanaag isaga ayaan arkay hore ayaan u raacay markii uu igeeyay halkii aan rabay ayaan ka codsaday inuu ii ogolaado inaan warbixin ka sameeyo shaqadan mooto bajaajka ah ee uu ka raadiyo biilka qoyskooda oo ka kooban 10 qof oo isaga la dhashay hooyo iyo aabe waxa uu ii ogolaaday inaan ka sameeyo sheekadan waxaan go'aansaday inaan warbixin ka sameeyo si ay dhalinyarada isaga la midka ah iyo kuwa kaleba ugu dhiiradaan inay shaqaystaan iyaga oo aan ka tahriimin dhulkooda hooyo Ibrahim ayaa ugu horeyn ka wareystay xilliga uu bilaabay shaqadan mooto bajaajka ah iyo haddii ay jiraan caqabado uu la kulmo inta uu ku guda jiro shaqo maalmeedkiisa shaqadan waxaa bilaabay 2016 adiga waxaa wada 3 sano ku dhawaad waa wada mootadii saddexaad wada koor waxaa wadi jiray 2 baajiya wadi jiro waa iska dhigay mid kale wadi jiro waa iska dhigay ariya sanadkan taagan waxa ay ugu darno kaliya wadooyinka jaamka markoo galbiyo kale waa cariiri midka wareega ilayeen meesha mari karti gadaal u noqon gadaal marka u naqamaago gadaal waa leega taagan inta wareeg marka maago inta waa leega taagan yahay caqabada ay ugu xun waxa kala wareega markay jaamka kala jiro ma kala wareegi karto dadku kala wareega ma kala wareegi karo waa iska jiraan dad ka qaarna waxay dhahan maadiga wada baala wadi karo mootadan way ila yaabaan dadka qaarna way ku farxaan adiga ma wada way soo raacaan ayagoo qoslay dadka qaarna waa shaki iga qabaan هذا موجود كرتي صورة كلام ما نقنيس إن ترى أي قيب عقبتها مرة كقار وإبراهيم لا كلمة بس تبدل كذا وح عاويه تذكر ركاب قوة سداني وكلتها أما وضعت كوضع المرة سيودي رجليان شغال وبرشة وهاي إيه صايبين ومد ugu daran kaliya baadka dagalo oo la caawiyo maanta adiga isla ay caawiso kale oo maanta soo caawisay baadka markay ay jirto ay la qabatay ay la reexday marka oo ka soo gudbo yaani oo kaligay ahaan oo yaani xaafadaha dhax socdo kale baad ku imaadane kulleeyta walaalay muslimiinta oo meelaha makawiina wax ay caawiyo xaafado kale laga soo baxaa Ibrahim ayaa sidoo kale ii sheegay inay jiraan dad kale oo faragaab ah isla markaana isaga la mid ah oo ku nool Muqdisho laakiin ay ka xishoonayaan inay bulshada ku dhex shaqeeyaan iyaga oo ka cararaya in lala yaabo waxaana intaasi igu daray in isaga qudhiisa ay dadka la yaabaan marka uu ka xaynayo mooto bajaajka ee uu ku guda jiro shaqo maalmeedkiisa la waxa qabada uu istaagay yaani nin walbo gaaban yaani oo iska xishoona waayo wax gaaban oo istaba socdo hadii laamiga lagu arko dadkan waa ogtay hal qof kaliya ka fakar la ay saas u dadayaan saacada la taagan yahay la kulmooyabo dadka qaarna way kula yaabayaan way kula qoslayaan dadka qaarna way ka farxinayaan way ku sheekeynayaan gaab shaysaata xaaladda korna kuliin dadka qaarna inay ku dayaan ku qoslayaan ka tigayaan marka waxa ay ugu xunoo kala xaafadaha marka gelayo kale aadi ugu leeyahay laamiga kala corona mid ka mid ah wadayaasha mooto bajaajka ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho isla markaana saaxiib la ah Ibrahim ayaa ii sheegay in Ibrahim dhiirigelin uu yahay dhalinyarada Soomaaliyeed isla markaana ay ku dhiirigeliyaan wadida mooto bajaajka wala fariintiisu waxay tahay in mar waliba yaani dhiirigelin qof aragtay ay dhiirigeliso ay niyad u dhisto ay farax geliso ay tiraahdo ma sha Allah mar waliba ay dhiirigelin ku sameeyay qaabka uu shaqaysan lahaa Ibrahim waa isku kalsoon yahay in badan oo mooto wadiyay alxamdulillah waxa leenahay Ibrahim ma sha Allah Allah ku barakeeyo Ibrahim ayaa ii sheegay inuu horay u soo waday 3 mooto bajaaj oo kira ah wilina uu ka xeeyo mooto kira ah isagoona ummadda Soomaaliyeed ka codsaday inay ka caawiyaan sidii uu u heli lahaa mooto uu isaga leeyahay si uu u hiigsado mustaqbal wanaagsan mararka qaar waxa laga yaabaa mootada kirideeda bis inaan dhigo aniga cideeda iyo waxaan ku maareyn lahaa iyo mararka qaar ee iga warartaa soo waayo kirida bis soo helo oo yaani dadkana
iguma kalsoono waayo boqolkiiba 90 iguma kalsoono inta igu kalsoon waa in gaaban inta gaabanna mootada kaliya inay helaan maanta laga yaabaa marka ummadda walaalahayga meel walba joogan waxaan jeclahay inay igu caawiyaan inay hal mooto ay ii galaan waa leeyahay lambar fureyga waa 6 14 83 eber